akhyaarteena qiimaha badan halkaad nagala socotaan waa warbaahinta xorriyadoon online. Iminkii haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyey ee deegaanka Somali State. Aan ku bilownay shalay shirkii u socday odayaasha deegaanka Somali State waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya, madaxweynaha deegaanka Somali State. kulankaas oo ahaa kulan aad u qiimo badan oo la soo agaasimay waxaa khudbado muhiim ah ka jeediyay ra'iisul wasaaraha federaalka Itoobiya mudane Abiy Ahmed. sidoo kale waxaa halkaas khudbado muhiim ah ka jeediyay qaybo kamid ah odayaasha deegaanka Somali State. waxaa kaloo halkaas ka hadlay madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar. dhammaantood waxay halkaa ka jeediyeen khudbado aad iyo aad u qiimo badan. haddii aynu ku bilowno odayaashu halkaa ka jeediyay khudbado taariikhiya, waxay ka hadleen dhibaatooyinkii soo maray shacabka ay soo mareen 10kii sano ee u dambeeyay, dhibkii soo gaadhay, maamul xumadii ku dhacday iyo dhibaatooyinkii ay u geysatay xukuumaddii faashilka ahayd ee uu hogaaminayay Cabdi Maxamuud Cumar. sidoo kale odayaashu waxay ka hadleen oo ay farta ku fiiqeen maamul xumada iyo dhibaatada ka jirta deegaanka inay kaalin weyn ku leedahay dowladda federaalka Itoobiya. sababtoo ah waxay odayaashu si toos ah u sheegeen maamulada Itoobiya iyagoo ay soo magacaabayso inay ka fiicnaan lahayd shacabkaas inay si dimuqraadi ah u soo doortaan. waxayna ka codsadeen maamulka cusub ee mudane Abiy Ahmed in hadda kadib maamulada ay dhisanayaan shacabku iyagoo ay soo doortaan oo iyagu si xor ah ay u keenaan meesha, isla markaasina iyagu si xor ah ay ula xisaabtamaan. waxayna sheegeen in hadda kadib laga gudbo nidaamkii TPLF ee iyagu soo magacaabi jiray dadka maamul ka hor keenay, isla markaasina u keenay nidaamka dhibaatooyinka faraha badan u geystay faashilka ah ee Cabdi Maxamuud Cumar. odayaashu ayagoo sii wata hadaladooda waxay ka hadleen dhibaatooyin kale oo deegaanka ka jira oo ay ka mid tahay xiisadaha xuduudaha u dhexeeya qowmiyadda Oromada iyo Soomaalida. waxay ku baaqeen arrintaas in si dhaqso ah loo soo afjaro, isla markaasina dowladda federaalku ay ka qaadato kaalinteeda muhiimka ah. ayaguna waxay sheegeen inay ku dadaali doonaan inay ka qaadan doonaan kaalinta iyo doorka ay ku leeyihiin. dhinaca kale odayaashu ayagoo waxay ammaaneen isbedelka cusub ee uu keenay ra'iisul wasaaraha ee dowladda Itoobiya mudane Abiy Ahmed. waxayna ra'iisul wasaaraha kula dardaarmeen in isbedelkaasi uu noqdo mid dhab ah oo laga dareemo deegaanka, isla markaasina dadka deegaanku ay noqdaan dad il gaar ah lagu fiiriyo oo si ay ugu guuleystaan ay uga faa'iideystaan isbedelada ka socda dalka Itoobiya. halkaas waxaa isaguna ka hadlay madaxweynaha cusub ee deegaanka Somali State mudane Mustafa Maxamed Cumar oo shacabka u sheegay in uu si fiican ugu adeegi doono, isla markaasina uu ku dadaali doono mar walba inuu danta guud ka hormariyo danaha gaar ahaaneed, isla markaasina uu noqon doono midka muraayadda u noqdo dowladda federaalka iyo shacabkaba, isla markaasina inta uu isagu xilka hayo uu keeni doono horumar iyo in shacabku ay sharciga ku dhaqmaan. dhinaca kale waxaa halkaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya oo hadal aad iyo aad u qiimo badan jeediyay. ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in shacabka Soomaalidu ay yihiin Somali State shacab ku yaala goob istaraatiiji ah oo isku xidha Djibouti, Soomaali weyn iyo dhammaan deegaankaasi geeska Afrika. wuxuu ra'iisul wasaaruhu sheegay goobtaas inay tahay deegaanka Somali State goob muhiim u ah dowladda Itoobiya, isla markaasina muhiim u ah gobolka, ayna tahay goob barwaaqo ah oo loo baahan yahay in sideeda looga faa'iideysto ayna noqdaan xarunta hoyga nabadda iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda. taasna uu ra'iisul wasaaruhu qayb ka qaadan doono sidii ay u noqon lahayd deegaankaas Somali State mid gaadha horumar iyo barwaaqo. ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay deegaankaas inuu yahay deegaanka ugu barwaaqo badan haddii sida ay tahay looga faa'iideystana uu yahayba deegaan cagaaran oo barwaaqada astaan ku leh. ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu ballan qaaday shacabka Somali State inuu la shaqayn doono inta awoodiisa, isla markaasina isbedelka uu ka dhigi doono mid dhab ah. ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya oo haddana ka hadlayay arrinta muddooyinkan dambe muranka dhalisay oo qaybo badan oo bulshada Somali State ay ka boodeen oo ku saabsan arrinta shidaalka, isla markaasina dadka ay si xun u turjumeen ayaa ka hadlay arrinta shidaalka. ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay arrinta shidaalka ee uu ka hadlay isagu inayna ahayn saamiga ay Soomaalidu guud ahaanba ku leedahay shidaalka, laakiin ay tahay
qayb ku saabsan saamigani mid local ah oo ku saabsan deegaanada shidaalkaas laga qodayo saamiga ay ku leeyihiin oo sheegay deegaanadaasi khaas ahaan shidaalka laga qodayo saami gaar ah inay leeyihiin oo ah 5%. laakiin arinta ku saabsan ee Somali State iyo shidaalka saamiga ku yeelanayaan wuxuu yiri waxay ku qoran tahay dastuurkeena taas dastuurka ayaa dib loogu noqon doonaa madaxweynaha deegaanka Somali State-na wuxuu sheegay arintaas in dib loo fiirin doono oo dastuurku wuxuu ka qabo la fiirin doono isla markaasina waqtigeeda ay noqon doonto kulankaas iyo shirkaas odayaasha uga socday caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa iyo khudbadihii laga jeediyay dhamaanba waxa ay ahaayeen kuwa muujiyay diilo wanaagsan iyo deegaanku inuu socdo jihada nabadda iyo horumarka dhinaca kale wararka naga soo gaadhaya jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya kadib markii la doortay madaxweynaha cusub mudane Mustafa Maxamed Umar jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya waxay soo dhaweeyeen si niyad sami ah ee madaxweynaha cusub ee mudane Mustafa Maxamed Umar ugu horeyn waxa ka hadlay arinta doorashada madaxweynaha Mustafa Maxamed Umar afayeenka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya mudane Cadaani Hirmooge oo waraysi siinayay qaybo kamid ah warbaahinta ee dalka Itoobiya mudane Cadaani wuxuu sheegay inay soo dhaweynayaan doorashada madaxweynaha cusub Mustafa Maxamed Umar wuxuu sheegay afayeenku oo hoosta ka xariiqay inay arintaasi tahay tallaabo hore loo qaaday isla markaasina uu rajaynayo madaxweynahan cusub maadaama uu yahay nin aqoon-yahana oo la soo shaqeeyay hay'adaha xuquuqul insaanka inuu noqon doono nin maamul wanaagsan ka dhaliya deegaanka Somali State isla markaasina ay wada shaqeyn fiican dhex marto iyaga iyo jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya sidoo kale qoraal rasmi ah oo ay soo saartay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya waxay si toos ah u soo dhaweysay magacaabista madaxweynaha cusub mudane Mustafa Maxamed Umar waxayna jabhaddu sheegtay inay tahay diilo fiican oo dhinaca nabadda iyo horumarka keenaysa in wax badan ay iska bedelaan dhinaca kale ugu dambeyntii isla maanta waxaa ku kulmay caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya mudane Xuseen Nuur iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Somali State kulankaas oo muddo dheer qaatay waxyaalo fara badanna la isu kula lafaguray ugu dambeyntii labada mas'uul waxay isla afkarteen 7 qodob oo muhiim ah oo taariikhi ah oo ummadda u noqonaya aasaas 7 qodob oo haddii sida ay loo dhaqan geliyo ummadda u noqon doona aasaaska nabadda horumarka xurriyadda iyo rabitaanka ummadda ee Somali State ee ugu dambaysta ay ummaddaasi gaadho xurriyaddeeda rasmiga ah ayna hesho xuquuqaheeda aasaasiga ah waxa saaka wada hadal yeeshay wafdi ka socday jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya jawxo oo hogaaminayay halgame Xuseen Nuur waxaana is-afgarad buuxa ka gaadheen dhammaan qodobadii ay ka wada xaajoodeen qodobadaas ay ka wada xaajoodeen madaxweynaha deegaanka Somali State iyo mas'uulka sare ka socday jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya oo ahaa 7 qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa in si degdeg ah loo qaado tallaabooyin lagu daryeelayo halgamayaashii ku naafoobay dagaaladii gumaysidiidka ahaa ee ay kula jireen xukuumaddii TPLF qodobka labaad wuxuu ahaa jabhaddu in ay si xor ah dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed uga bilowdo deegaanka Soomaalida qodobka saddexaad wuxuu ahaa in laga fogaado wixii keeni kara isku dhacyo ama keeni kara qalalaase iyo ammaan darro qodobka afraad in wada hadallo mug weyn oo u dhaxeeya dowladda Itoobiya iyo ONLF dhowaan ay si rasmi ah u bilaabmaan qodobka shanaad in laga fogaado wixii kala geynaya shacabka deegaanka ama keenaya kala shaki iyo isnacayb qodobka lixaad in maamulka cusub ee deegaanka kaalin fiican ka ciyaaraan in loo fududeeyo inay si sharci ah barnaamijyadeeda siyaasadeed uga hirgeliso deegaanka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya ee ONLF qodobka toddobaad in maamul cusub oo deegaanka loo ballan qaado doorashooyin xor ah oo xalaal ah kadib marka uu dhammaado xilliga kala guurka ah
waxaana geed dheer iyo mid gaabanba loo fuuli doonaa in la soo dhoweeyo deegaanka shacabka Soomaalida si wada jir ahna loo hirgeliyo go'aanadaas ay isku afkarteen labada mas'uulka ka socday jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Somali State. qodobadaas muhiimka ah waxay keeni karaan rajo iyo niyad wanaag iyo in gobolka lagu soo dabaalo nabadgeliyo rasmi ah oo waarta isla markaasina shacabku ay helaan xuquuqdooda rasmiga ah ee ay ka tarinta. arrimahaas muhiimka ah dhammaan waxay ka dhaceen deegaanka Soomaalida waxayna muujinayaan guud ahaan in deegaanku uu socdo jihada nabadda iyo horumarka iyo isfahamka iyo in ummaddu ay hesho midnimo maamul wanaag iyo rabitaankooda rasmiga ah inay gaadhaan taas oo muddo dheer ay shacabku jeclaayeen inay helaan xorriyad iyo wanaag iyo nabad. akhyaarteena sharafta badan waxaan dhammaan ka codsanaynaa deegaanka Somali State shacabkooda inay kaalin ka qaataan tallaabooyinka socda ee ay wadaan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya ee mas'uuliyiinta deegaanka Somali State iyo dowladda federaalka taas oo ay shacabka uga baahan yihiin in iyaga laftoodu ay ka geystaan taageero iyo kaalin muhiim ah oo ay ka qayb qaataan sidii deegaanku u noqon lahaa deegaan nabad ah oo isla markaasina shacabkuna ay noqon lahaayeen shacabkii ku guuleysta inay ka xoroobaan dhibaatooyinka muddada dheer soo jiitamayay ee ay TPLF ay u geysatay iyo kuwii iyagu ay meesha u dhiibteen. ugu dambeyntii akhyaarteena sharafta badan wararkeennii maanta intaas ayaan ku soo koobaynaa wixii wararahee soo kordha waxaan idinkula socodsiin doonaa barnaamijyadeena soo socda ku xidhnow warbaahinta xorriyadoon online oo had iyo jeer idinla diyaara wararka u dambeeyey iyo xogta rasmiga ah inay idiin soo gudbiso. iminkii haatanna waxaan isku macasalaamaynaynaa oon ku kala tegaynaa heesta maanta oo ka hadlaysa waayaha maanta iyo wakhtigaan ku jirno iyo Saynab Xaaji Cali Baxsan. qabiil u guura ma galo guri barwaaqeede geed iyo lo' baan leenahay iyo gaaban oo adhiye garoorka iyo subagga igu filan oo gudaa da'aye wax shisheeye kaa soo gala gaajo bixin waaye garwaaqsadaay waana waa lagama guuraani